madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabelle xubno ka tirsan labada gole ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle iyo mas'uuliyiin ka socota maamulka gobolka iyo kan degmada ayaa gaaray maanta tuulada Bayaxa oo kamid ah tuulooyinka hoos yimaada gobolka Shabeellaha Dhexe oo ay ka jirto xaalad bini'aadanimo tii ugu darneed. gudoomiyaha tuulada Bayaxa ayaa waxa uu madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Guudlaaw Xuseen uga warbixiyay xaaladda guud ee tuulada. midda kale maamulku waxaan u sheegaynay baahidana hayso in ay tahay oonka oo biyaha la'aanta hayso waad arkaysaa habeenka sida saaki hadda loo istaagay laba jirgaan biyo kali ayaa saaki oo dhan xinkii laga helo ay mana bixisa marka in ma aragtay alxamdulillah saaki si loo furay xinkii oo si saaki loo imaaday laba jirgaan biyo intaan oo dhan ma baahi tiri karto xubno kamid ah labada gole ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle iyo mas'uuliyiinta maamulka gobolka iyo kan degmada ayaa iyagana sheegay in loo baahan in la garab istaago shacabka ku nool tuulada Bayaxa. hal jibaal wuxuu shalay dhali jiray maanta hal hektar ma dhalo hal hektar wuxuu dhali jiray maanta 10 hektar ma dhasho iimaanko Ilaahay naga bixi iimaanka Ilaahay noo sugo maadaama ay marka hore ku tiirsanaayeen biyahooda oo webiga ku tiirsanaayeen webigana uu sida naqday sanooyin badan oo soo naqnaqahayo waxaan jeclaan lahayn in loo helo tuulooyinkan ceelal si ay maaragtay xaggan biyaha ay baahida biyaha horta meeshaas maaragtay uga baxdo dadka Soomaaliyeed oo Ilaahay waxa siiyay ama gudaha joogan ama dibadda ha joogeenna in waa u jeedin webigii sida uu yahay maanta dadka Soomaaliyeed ee muslimiinta iyo doonarska dhamaantood cid kasta oo gargaar yacni bixin karta bini'aadanimo inay ka qayb qaadato dadka ay haysato mataqaana tabaalada biyo la'aantu dhibaatadan dhibaato ballaaran waay kaliya kama jirto tuuladan sida gudoomiyaha degmada sheegay waxay ka jirtaa tuulooyin kale oo hoos yimaada degmadan Jowhar dhibaatadan waa dhibaato ballaaran waxaan ka rabnaa madaxda state-ka inay ku dadaalaan in xal loo helo dhibaatadan soo noqnoqotay ee haysata dadkan wasaaradda qorsheynta iyo wasaaradaha la midka ah inay gudtaan waajibaadkooda daruuriga ah inay ka warqabaan dadka ay macnaha isha qalinka u qaateen in ay macnaha baaritaan ku sameeyaan macnaha xanuunada soo noqonaya hadda daawan caloleedka ka dhashay macnaha isha jalaqsi iyo deegaanada hoos yimaada. ugu dambeyn madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Guudlaaw Xuseen ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay shacabka reer Hirshabelle ay garab istaagaan dadka danyarta ah ee ku nool deegaanada Hirshabelle. dadkan wada ogtay noloshooda waxay ku tiirsaneeday beerahay ku tiirsaneeday beerihii hore u baaba'een oo biyo la'aan ay u baaba'een maantana waxay taagan tahay waxay cabaan inay u dhintaan ay taagan yihiin biyaha u jeedino godadkaas ku jiro oo maaragtay xinki ay kala yihiin biyo ay maaragtay ay afkooda u cabaan ay kala yihiin haday biyihii wasaqa cabeen cudur ay meeshii ka dilaacay waxa ka jirta xaaladan maaragtay hadal lagu soo koobi karin ilaahay ummadana ka reebaan leenahay waxaan rabnaa guud ahaan ummadda Hirshabelle in fadhiga laga kaco la isu gurmado walaalka maanta aad ku badbaadiso waxa aad heli karto birina adiga aad ku moodo qiyaamo hadii ilaahay raali ka noqdo aan isu gurmadno fadhiga laga kaco waxay u baahan yihiin dadkan in loo helo biyo dhaamin degdeg in loo helo horta marka hore si dadkan shuban biyoodku ku dhacay ee biyaha wasaqa cabaya ay u helaan nolol ay u helaan kadib waxay u baahan yihiin in ceel loo qodo nolosha ma aragtay waxa ugu muhiimsan oo dadka bini'aadamka noloshooda hadayna biyo haysan badar haday u yeelna xataa karsama karaan hadayna waxay cabaan haysan ma adkaysan karaan horena waxay u waayeen dalagoodii u waayeen dhibaato aan maaragtay la qiyaasi karin halkan ka jirta ilaahay ka soo gaaraan leenahay Hamdi Dol Somal News Jowhar.